buugga xalka qoyska. حبي حرمدي قلبي جاي دمرتان كحشاي حبيبي حالك واسدي xaalkaygu ma fiicna xushmadaydu ma buuxdo intaan xalka qoyska xafidayo dhammaantii oo aan xiriirkeena ku dhisanayno xogtiisa. aan wada xafidno dhisano reer xurmad leh xalka qoysku waa maxay xalka qoysku waa buug xaajadii gurigeena iyo xeeladii aqalkeena noo xayaabo tiro xusuus weyn inagu reebi. xalka qoysku waa buug xalinaya dibkeena oo ka helayno xog buuxdo qoysku uu ku farxayo. xalka qoysku waa buug xeeleero qoyso la xumaatay xaajadu qoyskeenu joogo xalinaya xumaho xulo oo hasiiday xushay oo ma deene xagee baan ka helayaa. waxaad ka heli kartaa dhammaan xarumaha buugaagta lagu gado sida Zayla Bookshop, Qaaf Bookshop iyo Barakaad Bookshop. xalka qoysku waa buug kugu tababaraya sidaad u dhisan lahayd qoys waara iyo sidii aad isaga saari lahaydeen mugdiga iyo is-afgaran waaga hareeyay guryaheena. horey u gaar oo yaan laga dhamaysan xalka qoyskaaga. xalka qoyskaagu wuxuu ku jiraa inaad hesho buugga xalka qoyska. xalka qoyska. xalka qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا ما تحب وترضى كنتم وناكسن داود يال وبرنامج كني حلقة قويسكا قيبتي سيشن إلى طناد إن شاء الله تعالى عشرة إني نوسا السعودي إيه هجامين تقويسكا أيان كسو دحجرني waxaan maanta ka hadal doonaa qodob aan u bixiyay laymow isbedel. laymow isbedel waxaad ogaataa maalintii aad dhalatay ilaa maalinta aad dhimanayso waxaad ku dhex jirtaa isbedello nolosha ah oo maalin midba mid kuu dhiibayo. waxaa isbedelaya waqtiga, waxaa isbedelaya muuqaalkaaga, waxaa isbedelaya noloshaada iyo habka u nooshahay, waxaa isbedelaya garaadkaaga iyo aqoontaada iyo habka aad wax u qiimayso dhan waa isbedelaya. waxaad ogaataa saacad ayaa wareegaysa, habeenkii maalintuna waa isbedelayaan. waxaasoo dhan garaantaa wareegaysa waxay u baahan tahay inaad ka faa'iidaysatid oo isla bedeshid. haddii waqtigo dhan uu hal maalin iska ahaan lahaa ama hal habeen iska ahaan lahaa lama baahdin isbedel. sababtaa waxa mugdiga habeenka loo kala bedelay cilmi badan baa ku dhex jira. inaad fahamtid waqtigu inuu kugu socda kow ka ah, inaad ka faa'iidaysatid baa laba ah, inaad waqti nasitid waqtina aad shaqaysid baa ka mid. isbedelka marka qoysku u baahan yahay aad buu u ballaaran yahay. markaad qoys dhisto waxaad samaysay isbedelkii ugu horreeyay noloshaada. waxaad rukuma u taagtay mustaqbalkaagii, waxaad abuuratay partnership ama wehel noloshaada mustaqbalkeeda aad doonayso inaad noolaatid. waxaad ka fikiraysaa inaad abuurto qoys aad barbaariso, wax bartid, ku indhaqaboosatid, ilaahay awlaadkaas siiyo. haddaba markaad degtay oo aad qoys dhistay waxaad samaysay isbedel ka mid a isbedeladii ugu waaweyn noloshaada aad samaysay. haddaba maxaa looga baahan yahay in isbedel yimaado mar haddaad degtay? isbedelka ugu muhiimsan noloshaada markaad samaysid waxaa la rabaa inuu joogto noqdo. sababta waxaa la ogaaday maanta isbedelku siduu u socdo aad buu uga xawli badan yahay sidii hore oo lagu qiyaasi jiray. waqtiyadii hore waxaa la qiimeyn jiray waqtiyada isbedelka dhici karo, ama bulsho ahaan ha noqoto, ama teknolojiyada ha noqoto, ama maxaan ku idhaha deegaanba ha noqoto. isbedelada dhacaya waa lasii qiyaasi karay, waa lasii odorosi karay, kabacdina waa loo diyaar garoobi jiray. maanta way ka duwan tahay saas. isbedeladu maanta waxay dhacayaan harka labadiisa gelin ayaa adduunka isbedeladu ka dhacaya. teknolojiyada isbedelaysa, socialka ama bulshada baa isbedelaysa, aqoonti baa isbedelaysa, habka bini'aadanku inoo dhan baa isbedelaya. waxaa loo baahan yahay marka qofku hadduu mas-uul u yahay reer ama uu hogaamiyo qoyseed yahay in indhihiisa intuu furo uu la socdo isbedelada bulsho, dhaqaale,
waxbarasho iyo teknolojiyad ee socda si uusan uga harinin qoyskaanu isbedelada dhacaya sababtoo adaa mas-uulka reerkii hogaamiyuhu asagaa la rabaa reerka inuu ku hago inuu la qabsado waqtiga inuu waqtiga ka hara lama rabo waxaa lagu sifeeyaa isbedelku inuu yahay dabayl xoog badan oo mawjad ah oo socota qofkii dabaysha dhinacay u socoto aan u raacin waxaa la sheegay dee dabayshaas waa jiirtaa kabacdina wuu haraa dadka webiyada degan oo ku nool qeybaha webiyada meelaha webigu degan biyuhu markay socdaan waxay ku leeyihin haddaad doonaysa webiga inaad goyso biyaha lagama hortago saasaa biyaha loo raacay meesha u socdaan baa loo raacaa bilmathal waxaad rabtaa inaad halkaasoo kale ka baxdo waxaad ka soo gelaysa webiga halkaa si biyaha intaa u raacda si tartiiba aad u khiyaamayso halkaa uga goyso laakiin haddaad biyaha uga hortagto adoo doon yar wata waxaa dhici karta inaad ku qarqanto isbedelka lagama hortago haddaad ka hortagto ku jiiraya laakiin waa la dhinac qaadaa saa ula qaybsatid si tartiiba isbedelku marka waa laba nooc midna guriga gudihiisa ayaa u baahan isbedel inaad ku samaysid midna waa midka externalka korkaaga imaanaya oo adigu reerkaagii adinkoo midaysan inaad la qabsataan loo baahan yahay lama qabsan kartaan isbedelada ka dhacaya dunida ama deegaankaad ku nooshahay oo nooc walba leh oo mid dhaqaale leh oo mid bulsho leh oo mid caafimaad leh oo mid teknolojiya leh haddii aynan indhihiinu furnayn qoyskuna qoys marka horeba gudihiisa isbedel ka sameeya uusan ahayn qoyska isbedelada la qabsada waa qoyska isfahmay isla socda isjecel fahamsan meesha u socdaan hiraal iyo vision leh qorshe ay ku gaaraan samaystay communicationka iyo xiriir ka dhexeeyaan uu toosan yahay qoyskii intaan haysanin lama qabsan karo isbedelada dhacaya mana fahmi karo laakiin qoyskii intaas haysta ee ilaahay siiyey inay isfahmaan qorshe samaystaan hawshoodina ay si niyad sami ah oo iskaashi u qabsadaan waxay iska caabin karaan isbedelada dhacaya reemiyiga ayaa waxaa la yidhaahdaa way legdamaan dadka legdanka yaqaana miyay is istaagaan oo macnaha miyay istaagaan markay legdam miyay isqotomiyaan isma qotomiyaan dadka legdama waxay sameeyaan waa islaalaabaan jirkooday jilciyaan lig iskama dhigaan haddaad laakiin lig iska dhigto si tartee dhulka lagu dhigaa lagu jabinaya si marka aan lagu legdin waxaa la rabaa inaad islaalaabi kartid oo raadin kartid xeelad qofka dhulka aad ku dhigtid waktiga iyo waayuhu waxay la mid yihiin wax aad legdamayso oo kaleeto wax adiga ku legdayoo kale wey marka saysan waktiga iyo waayuhu kuu legdin ama waktigaan socdaad uga faa'iidsatid waxaad u baahan tahay inaad isjilcisid oo aan static iska dhigin waxaad u baahan tahay inaad islaalaabtid waktiga aad fahamtid inuu u baahan yahay inaad tactics isticmaashid aad kula qabsato waktiga iyo waayaha jira si aad u samayso isbedel nafsi ah oo reerkaaga ku hormarisid haddaba intaana u gudin istabelka guud oo externalka ah oo adiga banaanka midkan guduhu see ku dhashaa midkan guduhu wuxuu ku dhashaa iskaashi dabeecad wanaag isxurmayn iyo wada noolaansho sax ah ood ka abuurta gurigaaga haddaba si aan u ogaano isbedelka qoyskaaga u baahan yahay waxa ugu muhiimsan waxaa weeye hadal wanaag la imow hadal wanaagsan iyo niyad wanaagsan in hadalka wanaagsan iyo niyadda wanaagsan ay wax yihiin waxyaabahay ku taagan yihiin reer qoysasku maanta waxaan soo qaadan doonaa insha allahu tacaala qiso intii aan buugga qorayey ama intaana bilaabin ka hor yar na dhex martay nin oday ah oo runtii ka mid ahaa odayaasha Soomaaliyeed ee qoysaska dhisay waxaan rabaa qisaas marka inaan wadaagno si ay nagu noqoto qiso yar oo tusaale fiican oo uga dayan karno xirxirnaanta iyo caburinta iyo nacaybku inaysan qoysaska gaarsiin karin inay isbedel sameeyaan lana qabsadaan isbedelada dhacaya laakiin waxa gaarsiin kara ay tahay isfahamka iyo jacaylka naxariista iyo dabeecad wanaagga oo koow ka tahay hadalka wanaagsan iyo niyadda wanaagsan waxaan rabaa marka qisadii baan rabaa inaan bilaabo waxaan la kulmay nin oday ah ayaan waxaan kula kulmay meel xaflada ninka marka intaan xaflada aan ka hadlaynin horta aan ka sheekeeyo historigiisa ninka waxaa la yiraahdaa Jimcaale Nuur wuxuu ku koray baadiyaha asagoo qaangaaru magaalada soo galay haddana askari buu qortay Jimcaale wuxuu u dhashay xirxirnaan iyo aamusnaan zaa'id ah iyo dabeecad xumo aan qiyaas lahayn intuu magaalada joogay wuxuu guursaday ilaa
4 gabdhood buu guursaday muddo 6 sano gudaheeda 2 cunug 3 cunug oo kala duwan waa u dhaleen mid walbana way ka tagtay iyadoo adkeysan weyday dabeecadiisa adkayd birta ahayd Jimcaale markii uu isqiimeeyay wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay qof aad u dabeecad badan oo waliba ka soo jeeda qoys ay qaraabo yihiin si ay ugu waarto qoyskaas maadaama maalin walba qoyska burburayo wuxuu goostay inuu baadiye tago oo abtigi uu u doonto gabar lagu sheegay dulqaad iyo dabeecad wanaag oo halka uu gabadhi u doonto muddo isu diyaariyay gabadhiiba doontay Jimcaale gabadhi waa soo guursaday Faadumo Dhool baa la yiraahdaa Faadumo markii la soo siinayna waxa lagu soo siiyay inay Jimcaale u adkeysato dabeecadihiisa adag maadaama ay walaalayihiin oo abtilmeed yihiin cid dhexgalaysa aysan jirin wax walba ku sameeyaan ay dulqaadato Jimcaale iyo Faadumo Dhool waa wada ku nasteen gurigii awlaad badan bay Faadumo Dhool u dhashay dabeecadihii iyo dhaqankii gaarka ahaa ee Jimcaale Nuurna oo xirnaanshaha iyo maxaan ku yiraahdaa waxay gurigii Faadumo Dhool ka hirgeliyeen xeer ka duwan xeerarka guryaha Soomaalida ah oo gaar ah waxa kamid ahaa inaan gaxaaska Jimcaale aysan Jimcaale weydiin karin wax su'aal wixii guriga dhaqaalihiisa ku saabsan wax ka badan ma weydiin karin gacanta ka soo horeysay dagaal 2 sheeko caadi ah oo dhex maraysa Jimcaale iyo Faadumo Dhool lama arag Jimcaale waa yimaada gurigiisu dhinac ka fariistaa cid lama sheekaysto biilkaas iyo wixii guriga main u ah Jimcaale waa ku fiicnaa xagga dhaqaalaha guriga waa bixiya ilmaha waxbarashadu wuu ku fiicnaa laakiin waxyaabo asaga gaar u ah yaa jiray oo kamid ah in la hadli karin su'aalo badan aan la weydiin karin waxa kamid ahayd carruurta markuu guriga Jimcaale inaysan ka hortagi jirin ay ka carari jireen ay markii odagu guriga soo galo ay qoralka isku xiraan iyagoo aaminsan odaga kuleelkiisa iyo dabeecadiisa aqdarteed in ay ka gabadaan oo aysan ka hortagin waxa kamid ah waxay guriga dhaqan Jimcaale ka hirgalay inaan qof u soo wareegi karo qaraabo ah ama daris ah uusan jirin guriga oo iman kara Jimcaale guriga jooga Jimcaale markii noloshiisa uu saas ku dhistay gabadhii walaashiisa ahaydna waa u samirtay wuu ku guuleystay in reerkii barwaaqoobo iska deganaado muddo jiro oo u adkaysto burburkii baa dhacay marka reerkiisii weynaaday ciyaalkiisii kor burburkii dhacay waa la burburkii markuu dhacay waa la kala cararay Jimcaale qaxriyaha qaxootigu galay nisboonaga carruurtiisii waa weynayd iyo gabadhii dhoof u soo baxay iyo asagiiba Jimcaale waa dhoofaysaa markii la yiri Jimcaale wuxuu xasuustay asaga iyo Faadumo Dhool dhibaatadii ka dhaxaysay Soomaaliya ayuu xasuustay hadalkii adkaa dagaalkii iyo dilku ku hayay dabeecad xumadiisu ka warqabay wuxuu aaminay hadduu Yurub iyo wadamada qarbiga tago in aan Faadumo Dhool iyo asagu wada noolaan karin xumaan ka iman karto wuxuu goostay marka inuu san bixin ee uu joogo wuu ka haray Jimcaale wuu ka haray qoyskiisa intii kalena waa u dhooftay Jimcaale marka waxa uu soo gashay inuu bilaabo nolol cusub oo kalinimo ah muddo yar kadibna wuxuu bilaabay inuu haddana guursado ilaa 3 gabdhood oo kale asagoo guursaday midda u badanna wax sanad ka yar qabay oo ay hayn la yihiin ayaan wax ku kulanay meel xaflada oo aroos ahayd oo aad iyo aad dad odayaal isugu yimaadeen Jimcaale marka waa lagu kaftamay waxa laga kaftamay in gabdhihi alla ku dhibo maalin walba intuu gabadh guursado ilaa jeebkiisa qoyan oo biil fiican buu helay inuu ma aragtay haddana gabdhihiisa hayn la yihiin halkaas marka waxa iga baxay maadaama buuggii xalka aan waday inaan Jimcaale la sheekaysto oo aan arrimihii qoyska la sheekaysto Jimcaale haddaan la sheekaystay oo cabaar aanu sheekaysanay waxa ii soo baxday asaguna maadaama si daacad igu waramay inkastoo la yaabay kiiska aan ka wareysanayo oo nin asaga ka yaro ka wareysanayo xaaladda gurihiisa iyo dhaqankiisa wuu soo dhaweeyay maadaama uu in badan magaalo joogay wuxuuna goostay inuu si sax ah igu waramo markaan Jimcaale si fiican warkiisa aan u sheekaysanay waxa ii soo baxay koow Jimcaale weligiis inuu xaaskiisa wajigiisa u furay inuu wajigiisa oo furan uusan gurigiisa xaaskiisa weli u furin uguna yeerin magaca ay leedahay koow waxa kale oo ii soo baxay inuusan weligii u sheekaynba oo sheeko gaar ah iyo kulan gaar ah asaga xaaskiisa dhex maray aysan jirin oo ahaa nin hore u socda yimaada gurigana qol ka degan markuu u baahan xaaskiisa u yeerto waxa kale oo ii soo baxday wax alla wixii wanaagsan ee gurigaas ka baxa inuusan Jimcaale haba yaraatay marna ka mahad celin wixii uu dhibsado guriga ka dhacana uu kula canaanto xaaskiisa kulana dirar isla markaana uu ku ceebeeyo waxa kale oo ii soo baxday inuusan weligiiba amaaninba xaaskiisa inuusan weligiiba amaanin
5 waxaan ogaaday meelaha ay u baahan tahay xaaskiisu sida dhakhtarka ama shoppingka ama meelaha dee xaasasku markay u baahan yihiin ay tahay mararka qaarkood haddaad waqti heshay inaad u raacdo ama aadba ku tixgelisay inaad soo wadoo geyso inuusan weliga u raacin meel dhakhtara iska dhaaf inuu shopping iyo geeyo meelaha dalxiisoo xoo ay kusoo qawsatay intaa kadib Jimcaale waxaan siiyey ama aan kala wadaagnay qodobadii aan ka helay informationkiisa waxaan kula taliyay maadaama uu markaan gabadhii 3-4 oo hadda lagu xamanayay in ay 3 hore ka tagan uu guursaday inuu isbedel sameeyo isbedelkaasna laga raba asaga naftiisa inay ka timaado waqti dheer oo aan sheekaysanay kadibna oo soo noqonay Jimcaale wuxuu aqbalay in uu fulay talooyinka aan soo siiyay oo ahaa horta bal inuu bilaabo isbedel naftiisa ah dabeecadaas adagna inuu xakameeyo isku dayo waxaan siiyay talooyin muhiim ah oo kooy ka ahayd horta inuu bilaabo si isbedel u sameeyo inuu alaab shopping gado gurigiisa tago habkii guriga uu macaamiisho dhan uu isbedel ku sameeyo hadalkii fiirintii geeyo saacadkii sheekadii inuu amaana xaaskiisa inuu wajiga u furo inuu hadalada dabacsan yiraahdo dhammaan waxaas oo dhan ayaan ka sheergaraynay aniga Jimcaale si uu fuliyo waxaan ku balanay muddo 15 bari ah gudahood inuu soo celiyo natiijo fiican haday ka dhalato iyo hadii natiijo ay fahmi waayo labadaba ay ka dhalan weyd maxaa dhacay marka Jimcaale marka oo ka sheekeynay arintiisii ayaan rabaa marka inaan hadda gallo iyo wixii uu qabsoomay iyo sidii arintaas bedelku sameeyay ay u saameysay gurigiisii una bedeshay noloshiisii intii ka dhimanayd Jimcaale waa kan markaas ka sheekeynay Jimcaale wuxuu yiri waxaan ku talagalay inaan fuliyo qodobadii aan isla fahamnay waxaanan sii gatay buu shopping fiican alaab maxaan ku ila cataro maxaan ku ila waxyaabo aanan weligay qaadin oo aad iyo aad u qiimo badan baan sii gaday gurigeygii baan aaday waxaan garaacay albaabkii si aan u garaaci jirin waxaa iga furtay xaaskii oo u qaadatay qof kale oo i weydiisay qofkaan ahay markaan u sheegayna way iga furtay iyadoo sheegtay inay u qaadatay inuu qof kale guriga garaacayo inta marka ay leedahay ay wajigeedii soo fiirtay markaas waxa aragtay anoo wajigii furay oo le saas waa mahadsan tahay raaxa waa mahadsan tahay sida wanaagsan aad guriga furtay intay soo fiirisay oo ila yaabtay waxay tiri maanta waad faraxsan tahay xageed soo martay intaan dhow la cadeeyay oo dib u fiiriyay waxaan idhi waa runta waan faraxsanahay hadiyadana maanta adaan ku sidaaye qalab raaxo way la siyaabtay warka waxay u gudoontay si ay la yaab la iga qabatay waxayna tiri yiri maanta waxaan sameyn jirin baa ka muuqda galabta yaa ka muuqda xaaji xageed soo martay waxaan ugu jawaabay meel lama soo marin laakiin ana dib mafadayda u fakiray waxaan ogaaday inaad daacadii tahay waxaan ogaaday inaad xaaskayga jeclahay tahay waxaan ogaaday inaad wehelkayga tahay inta markaa iri raaxa waa isbedeshay muuqaalkeedu dhan waa isbedelay gurigii dhan waa isbedelay hawadii guri ku jirta dhan way udgoon bay isu bedeshay iyadoo dhan farxad bay la duuli gaartay waxay tiri maanta meeshaad soo martay xaaji waa inaad ii sheegtaa maaha hadallada ku hadlayso hadalla lagugu yaqaanay maaha Jimcaale maaha hadalla aan kugu bartay intii taan kula joogay dabeecadaas iyo hadalka maaha hadalaanta ka sugayay waxaan ma u malaynayo maanta hadallada leedahay hadalla hore lagugu bartay inay yihiin maxaa soo kordhay bay tiri Jimcaale waxaan u sheegay wax kale soo kordhin arintaas aan fahmay kadib markaa nafteeda la tashaday wanaageedina aan dib u qiimeeyay inaan arintaas aan fuliyo sidaasaan galabtii gurigay ku galay gurigayga isbedel ka dhacay oo faraxsan oo yaaban oo hadalladii aan ku iri qaadan la oo jeejees u qaadatay waxaa la gaaray xilligii cashada ee guriga ayaa la gaaray waxaan la kulmay casho ka duwan cashadii guriga la iga sameyn jiray isla markiiba waxaan sameeyay waan ku amaanay oo waxaan ku iri raaxo caawa cashaad noo samaysay maahan casho caadiya ma habeenkii dhalatay baa cashadan waa casho cajiibe waxaan u qaatay buu yiri erayada markaan ku iri waxaan ka baqay buu kursi ay ku fadhiday gabadhii raaxo inay la dhacdo farxad daraade amaanta uu amaanay cuntadii habeenkii oo keentay kaliya way soo jeesatay iyadoo wajigeedii uu ka muuqdo nashaad iyo farax aad la yaabaysid oo lagu iibsan karin $1,000,000 ayay wax igu celisay buu yiri xaaji
maanta ilaa caawa erayo cusub baa kaa socdaa, hadal wanaagsan baa kaa muuqda, isbeddel jiradii mid waxaa kaa muuqda hadal. xaggeed soo martay, yaase kaa farxiyey, maxaadse isbeddelkan xagee keentay? isla markii waxaan u ballanqaaday buu yidhi raaxo in sidaa aan ula dhaqmi doono wixii maanta ka dambeeya, naftayduna ay ii sheegtay isbeddelkaas inaan sameeyo. habeenkaas gurigaygii waxaa u bilowday buu yidhi farxad iyo isbeddel aanan ku iibsan karin waxa maanta dunida yaalla. isbeddelkaas wuxuu ka dhashay isbeddelkii yarkaa aniga aan sameeyey oo muxuu ahaa hadalkii wanaagsanaa, ammaantii xaaskayga, wejiga aan furay oon u muusooday, ilkahaan u kala furay, ammaantaan ammaanay, jacaylkii niyadda ahay oon u muujiyey, u sheegay inaan jeclahay xaaskayga inay tahay. ka warrama marka intaa yarta ah hadalka wanaagsan. nabigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh, hadalka wanaagsan waa sadaqo, kalimatul dayib sadaqa. war hadalka wanaagsan wax walbuu ka qiimo badan yahay. xaaskii ninka layaa Jimcaale noloshii gurigii oo dhan waa bedeshay, habka u dhaqmaysay way bedeshay, asaguna waa bedelay. reerkeena wuxuu galay isbeddel cusub. eraygii ugu qiimo badnaa ee aan Jimcaale ka qoro wuxuu ahaa, adeer waxaan helay xalka gurigayga oo ku dhex dhuunsanaa madaxayga. bal fiiri, xalka gurigaygii baan helay oo ku dhex dhuunsanaa maskaxdayda. sababtoo xalku meel kale kama imaan, gudihiisu ka yimid, banaanka wax uga yimid ma jiraan, wax banaanka looga xalilay ma jirin. wuxuu fahmay Jimcaale noloshii 40 sano ka badnayd ee soo qaatay ee qalooca iyo qaylada iyo canaanta ku dhisnayd ee faamiligu inaysan waxba tarayn. wuxuu ku bedelay hadal wanaagsan iyo qabow iyo ammaan iyo tixgelin, waxaana u soo baxay intaa in ka badan. noloshiisii hadda waxay maraysaa inuu ku taliyo in dadka xaasaskooda isbeddel ka sameeyaan, naftooda la yimaadaan isbeddel, si qoysku isu bedelo, si qoysku u fahmo inuu qoys ku raaxaysta nolosha inta ka dhiman uu yahay, si loo fahmo noloshu inay tahay istixgelin iyo jacayl iyo wada noolaasho iyo qoys baraara. haddaba aabbayaasha waxaa laga doonayaa isbeddelku inuu ku xiran yahay naftooda, inay iyagu fahmaan inay keenaan isbeddel, inay gurigooda isbeddel ka abuurka inay fahmaan. kumanaan qoys baa maanta la baaba'san caro iyo camal xumo ka timid hogaamiyaha qoyska oo aabbaha oon fahamsanayn waxa canaantu iyo dagaalku ay qoyska u sixi karaan in ka badan inay sixi karto tixgelintu iyo wanaagga iyo xurmadu. waxaan doonaynaa maanta inaan u istaagno inaan bedelno dhammaantano qoysaskeenna, inaan ka bedelno canaanta iyo eedaynta iyo waxyaabaha aan fiirinayno dhan inaan indhaha ka qarsanno, inaan u bedelno ammaan, inaan u bedelno xurmayo, inaan u bedelno jacayl, inaan u bedelno tixgelin. intaa haddaan gurigeenna gelinno, guryahanagu waa noo hagaagayaan, xaasasku waa noo barakoobayaan, caruurtuna waxay ku korayaan nolol isbedel iyo farxad iyo reyreyn leh. qoyskaasna wuxuu ka qayb qaadan karaa isbedelka ka dhacaya deegaankiisa, waxbarashada, dhaqaalaha, teknolojiyada ee uu ku hareereysan yahay, ee biicadda uu ka tirsan yahay ku jirto. intaa qoyskii waaya meel ma gaarayo, mana noqonayo qoys guuleysta. ujeedka marka isbedelka loo sameynayo waxa waaye inaad fahamtid sida saxda ah ee gurigaaga u noolaan karo, inaad fahamtid. waxayna taa ka imaanaysaa mas-uulka reerka oo ah odaga. gabadha gabar ugu dabeecad xun, ugu qaylo badan, ugu dhib badan, haddii hogaamiyuhu isticmaala xirfadiisa iyo awoodda rabbaaniga ilaahay siiyey ee jirkiisa ku jirta, wuxuu ka dhigi karaa gabadha ugu wanaagsan, ugu akhlaaqda badan, ugu sharafta badan, asagoo isticmaalaya caqligiisa iyo karaamada ilaahay siiyey. marka waxaa la rabaa inaan ka fogaano buuqa, kala taagga, isfaham darrida, isnaca, ku bedelay saamaxaadda, isfahamka, jacaylka, istixgelinta iyo hadalka wanaagsan. hadalka wanaagsan wuxuu ka gundheer yahay ama uu gaaraa meelaan wax kala gaari karin. wuxuu fahamsiiyaa qofka wax aadan lacag ku fahamsiin karin ama si kale u fahamsiin karin. hadalka xunna wuxuu burburiyaa sida ay u burburiya koobka dhalada ah, dhulka hadduu ugu dhaco u kala daato ayuu qofka moralkiisa iyo maskaxdiisa u burburiyaa. waxba ku keeni maayo adigan. Soomaalida tiraahdaa hadalka xun nabadna waa kaa geeyaa, colna waxba kaagama taro. war gurigaaga haddaad maalin walba hadal xun tiraahdo, xaaskaaga tiraahdid
oo moralkeedii maskaxda la dagaalantid ilmahaagiina maskaxdii moralkoodii baad la dagaalamaysaa ugu ma aha xaaskaaga keliya marka hadalka aan wanaajinno niyadda aan wanaajinno aan u fahamno gurigaan inuu guri kuu dhisan yahay si qoysaska noogu barakoobaan uga miqdoon qoysaska ku guulaystay nolosha qoysaska ka qayb qaata horumarka deegaankay joogaan qoysaska dhabta ugu nool raaxada iyo nafsada iyo deganaanshaha waxaan ku gaari karnaa arrintaas inaan helno hadal wanaagsan iyo niyad wanaagsan oon u muujino xaaskeena oon u muujino gurigeenna waa dantaada maaha danta gurigaaga maaha danta cid kale maaha waa danta gurigaaga iyo dantaada wey marka waa inaan fahamnaa isbedelku inuu ka mid yahay nolosha waxyaabuhu keena ha noqonin bahal waxaa la giraanta dooliga bahlaydaa jirto giraanta dooli baa waxaa la geliyey bahal yaroo giraana waxaa loo sameeyey albaab yar ay ka baxdo waxaa la jaaminaya bini aadanku inuu isbedel la yimaado inuu badbaado u tahay baa lagu qiimeynayo dooligaa wuxuu garan waayey albaabka yarkaa oo meesha ka furan hadduu lugta saaro albaab yar baa saa u xir inay u baxayso oo ka bixi kara giraanta ma samaynin muxuu sameeyey giraantiibuu saa ugu dul wareegayaa waqtigoo dhan wuxuu ku lumiyey maruu xagga u ordayo iyo maruu xagga u ordayo hadduu inta midigta fiiriyo halkaa lugta saaro wuu ka bixi lahaa noloshu waa sidaas habeenkii maalintu waa isbedelayaan waxay isu bedelaya adigu inaad isla bedeshid haddaad ku noolaato habeenkii maalinta dhexdooda oo saa isaga daba wareegtid oodan wax fikira keenin wax isbedel naftaada ku abuurin wax haba yaraatay gurigaanu mustaqbalkiisa aadan ka fakerinin dooligaa iska wareegaad la mid tahay nolosha aad maalintaa ku qaabilaysa iyo habeenka adoo taagan bayna kaga dhammaanayaan adoo taagan bayna ku imaanayaan waa inaa isbedel la timaadaa nafsi waa inaa isbedel caqli la timaadaa waa inaa isbedel maro la timaadaa oo gurigaaga ku dhisaysid oo aad fahamtid isbedelku maaha wax sisaana loo sameeyo go-aan qaadashu u baahan yahay baahidii inay taagantahay inay fahamtaa loo baahan yahay inaad fulisana u baahanta haddaa casiimada gaadhid guryaheenna waa noo dhismayaan qurux iyo wanaag baan ku noolaanaynaa sharaf iyo cizina ilaahay wuu ku siinayaa sababtoo gurigaaga markuu kuu wanaagsanaado waxyaabaha kordhan waa kuu hagaagayaan shaqadaa kuu hagaagaysa saaxiibadan la sheekaystaa kuu hagaagaya ma garanaysaa bulshada dhexdeeda inaad qof muuqdo aad ka noqoto ayaad noqonaysaa markii gurigu kuu hagaagsan yahay laakiin gurigu hadduu kaa dilan yahay maqaayadaha iyo saaxiibadana waxaa u tegaysaa adoo bahdilan oo buuqsan mustaqbalkaagana ciriiri buu ku jiraa sababtoo guriga nin uga shidan yahay dab banaanka kuma raaxaysan karo laakiin nin guriga u qabow yahay ayaa bannaan ku raaxaysan kara waxaan doonayaa inaan fahamno in noloshu ay tahay isbedelkaasna uu yahay in laga faa'iidaysto adoo isticmaal awoodda ilaahay ku siiyey si aad ula qabsatid isbedelkay dunida ee dhaqaale ee waxbarasho ee teknolojiya ee maanta socota samee isbedel gurigaaga ka samee xaaskaaga ilmahaaga ku dhis tashi iyo isfaham iyo jacayl iyo ixtiraam anigoo rajeynaya insha allahu tacaala inaan casharkeenni maanta isbedelka intaa aan kusoo koobo waa cismaan sheekh oo isbilowni leh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu